سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامجكني daah qaad iyo taxanaheennii aynu ku baadigoobaynay taariikhdeenii luntay 6 cadawgeenu isugu celiyay dastuurkoodina sidan ayaa u ahaa kow waxay go'aamiyeen oo dhammaantood isku waafaqeen inuu ahaado boqorka gudabiirsi magaciisuna ahaado ugaas cali sidaasoonu ku noqday ugaaskii u horeeyay ee boqor noqda haddii uu dhintana wiilkiisa weyni dhaxlo sida ay u kala weyn yihiin loo kala dhaxlo haddii uu muran dhaco ama boqorku bilaa ubad yahayna walaalkii la wareego labo waxaa la taliya looga dhigi doonaa 100 nin oo beesha goonyaheeda ka soo kala jeeda haddii boqorku bilaa ehel yahayna 100 nin ayaa boqorka soo dooran doona 3 haddii ay soo diristo xaalad uguba ama curad ahna ninka boqorka iyo 100 nin ayaa ka arriminaya kana wada tashan doona go'aanna ka wada qaadan doona hadday tahay mid hore u jirtayna wixii ka yaala ayaa lagu qaadi doonaa 5 kolkii boqorka la caleemo saaro waa in dhammaan madaxyaweynta iyo waxgaradku isku yimaadaan 6 waa in la geeyaa ceelka bagi dhagaxa dhexdiisa yaala quruxda badan dhalaalkana rabbi u dhameeyay waa inuu ku fadhiistaa kuna maydhaa dharkana lagaga bedelaa loona xidhaa dhar boqortooyo oo ay ka mid yihiin khamiis dheer iyo cumaamad 7 in dadka deriska inala ah la dhowro dhagartana laga ilaaliyo wixii khilaaf soo galana nabad lagu dhameeyo 8 xukunka xagga diyada in loo daba istaago oo loo daba fadhiiso shareecada islaamka 9 guurka iyo furniinkiisana loo daba fadhiisto diinta islaamka 10 in qabiilka laga fogaado oo reer aan loo dhaqmin 11 in la sameeyo 10 nin oo xeer beegti ah doodaha waaweyna loo dhiibo waxay dhahaan aan erey laga daba odhan cadaaladana ku dhaata markii la dhameeyay waxa loo dhaqaaqay dhamaystirkii oo ahaa in loo bedelo farahana lagu hayo ugaasyada u kala dambeeyayna waxa ka mid ahaa ugaas cali oo magaciisa caadiga la oran jiray cali makaa'il dheere waxa uu ahaa ugaaskii u horeeyay markii la doortayna waxa la mariyay habkii tolmoona ee heshiisku ahaa ee aynu soo xusnay wuxuu boqornimada qabtay markii ay taariikhdu ahayd 1607 miilaadiga wuxuuna ku dhashay meel la yiraahdo Dhoobo sanadii 1575 miilaadiga hooyadii waxa la oran jiray Khadiija Sheekh waxa uu ahaa caalim wax ku bartay herar iyo saylac wanaag iyo wacnaana u dhashay waxa uu geeriyooday 1639 miilaadiga wuxuuna ku aasan yahay gabiilay oo dadka qaar ku siyaartaan waxa kaloo ka mid ahaa ugaas cabdi ugaas xuseen ugaas cabdalle ugaas nuur ugaas hiraab ugaas shirdoon ugaas samatar ugaas guuleed ugaas rooble iyo qaar kale oo fara badan waqtigii ugaas cabdi ahaana wiilkii cali makaa'il dheere wuxuu dagaalo badan la galay nimankii la oran jiray gaalaha ama oromada ha yeeshee boqorkii ka dambeeyay oo la oran jiray Xuseen waxa la sheegaa inuu ahaa geesi jariska xuura xadhigu qabsadana loo gooy jiray ha yeeshee waxa uu lahaa dabeecad xun waxay isfahmi waayeen dadkii wuuna cadhooday oo iska tagay dibna looma arag dabadii xilkii waxa la wareegay ugaas nuur ahaana nimay ku dhaataan kuna indha kuushaan ha yeeshee maalin ayuu ku fakiray inuu khiyaameeyo boqorkii gaalaha 40 nin ayaa u kaxaystay wuxuuna ku yiri waxaan u soconnaa nabad wuxuuna ugu jawaabay gaalkii la oran jiray Alaabore nabadda waan jeclahay ila dega mid wal oo idinka mid ah waxaan sii doonaa gabadh qurxoon boqorkiina waxa uu siiyay inantiisii Faaya oo ahayd tii ugaas shirdoon dhashay boqorkii Alaabore iyo tolkii waxay u guureen meesha la yiraahdo Faafan raggiina waxay kula sii heshiiyeen oo kula sii ballameen inay awr iyo habla awrta la rara u soo diri doonaan markii ay hablihii iyo awrtii soo gaadheenna way soo guureen
hablihiina way soo afduubteen lo' badanna way soo dhaceen. markii gaalkii Allaabore ogaaday wuxuu ka daba keenay ciidan wuxuuna amray in la laayo intaanay gaadhin tolkood. ugaaskiina wuxuu hoosta ka galay buurta la yiraahdo dhoobo wuxuuna ka samaystay dhufays weyn. markii ciidankii soo gaadhay la iskuna walfiifay waxay ogaadeen inaan waxba laga qaadayn kuwan wayna iskaga noqdeen. gelin ayay halkii joogeen ugaaskii iyo intii uu watay. kadib waxay u soo guureen dhanka oogada halkaana ku nagaadeen. kadib mar labaad ayaa uu Allaabore ciidan u soo diray wuxuuna amray in saqdhexe la miro. kadibna waxaa dhex maray dagaal waxaa lagu laayay dhammaan ciidamadii la socday ugaaska. waxaa lagu dilay oo kale 9 wiil oo ugaasku dhalay. waxaa dirqiya tubaas iyo faradhexdood ku baxsaday ugaaskii iyo 2 wiil oo dhalay oo la kala oran jiray Shirdoon iyo Hiraabe. waxay ku dhexdhaceen reer tolkood una sheegeen dhagarta loo geystay. markiiba col baa la cumaamaday oo laga daba diray waxayna ku gaadheen meel aan durugsanayn. kadib foodaa la istaray dagaal ba'anina wuu ka dhex dhacay waxaana ku gacan sarreeyay gudabuursiga. muddo yar ka bacdina waxaa xijaabtay ugaaskii. taariikhdu markay ahayd 1733 miilaadiga waxaa taladii la wareegay wiilkiisii Shirdoon. waxaa la boqoray sanadii 1750 miilaadiga. isna intii uu xilka hayay wuxuu dagaal kula jiray nimankii gaalaha hoogna wuu dhadhansiiyey. dhirbaaxo aanay ka soo waaqsanina wuu ku dhuftay. wuxuu dilay abaanduulihii gaalaha oo la oran jiray Kalunba waxaana dilay nin la oran jiray Hilingeed. waxa uu dhintay ugaaskaasi 1773 miilaadiga. intaa wixii ka dambeeyay waxaa qabsaday ugaas Samatar. inkastoo ahaa nin la wada jecel yahay haddana isaga iyo intii ka dambeysayba way daciifeen awoodoodiina hoos u dhacday ilaa laga gaadhay ugaas Rooble oo xilka loo boqoray 1817 miilaadiga oo ahayd markii walaalkii la dilay. hooyadiina waxaa la oran jiray Xamaro Geelle. wuxuu mideeyay gudabiirsi cududoodii iyo calankoodiiba wuxuuna gaadhay meel sare. wuxuu dagaalo la galay gaalihii wuxuuna ka dilay ninkii labaad ee boqorka ku xigay oo la oran jiray Nuuno kaas oo gaaluhu ku faani jireen. waxaana dilay Geedi Bahdoon. ugaas Rooble waxa uu dhintay 1848 miilaadiga. daawade taariikhda waan soo koobay waanan soo yareeyay waxaanan u soo yareeyay inaad adiguna baadidoon tagto oo aad ila orado si aad u soo hesho waxyaabo ka ballaaran inta aan helay. daawade ma waxa kuu muuqday cadaawada Oromada iyo ciilka ay inoo hayeen weligood? ma waxaad milicsatay mareegtada dagaal ee aan dhammaan iyo sida maanta walaalaheen ay u yihiin? daawade waxa la yidhi buur baa foolatay waxay ducataba waxay dhashay irbad. waa waxaan madaxa bini'aadanka gelayn. daawade ma waxaad u malaynaysaa dagaalka intaa leekaha ee boqorrada madaxa laga gumaadi jiray inuu mar qura istaagay dabeetana gabagaboobay? ma jirto oo waxaan caqliga galaynin weeye. daawade kani waa dagaalka ka dhexeeya xaq iyo baadil mana dhammaan doono ilaa iyo qiyaamaha. daawade cadawgaaga ood garan weydaa waa habaare. Soomaaliyey lamadoodka ka toosa oo indhaha kala fura waa la inagu soo maqan yahay. daawade la soco qaybaha dambe una dir qof kastoo diir Soomaali leh siduu u ogaado taariikhdeena daaha la saaray.